Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee Suldaanka Media oo aad si toos ah kala socotaan xarunta dhexe ee aynu ku leenahay magaalada Nairobi. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah agaasimo cusub oo loo magacaabay Villa Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay shaqsigii bixiyay imtixaanaadka qaran ee dhawaan dowladda ay kansashay. Somaliland oo shaacisay 4 sifo oo liita oo xildhibaan Dhakool uu ku qeexay 18 May oo Somaliland ay u aqoonsan tahay maalin ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. madaxweyne Waare oo tallaabo la yaab leh ka qaaday gaadiidley ka diiday arrin uu ka codsaday. taabid duqii hore ee Muqdisho oo war ka soo saaray go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay imtixaanaadka qaranka. iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo cambaaraysay fal la isku dayay in lagu weeraro wax soo saarka shidaalka dalka Sacuudi Carabiya. warkii oo fidsan. madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay yeelatay agaasimihii afraad iyadoona la magacaabay agaasimahaasi. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fursade inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya. qoraal uu soo saaray ayuu madaxweynaha ku yiri waxaan maanta u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Fursade inuu noqdo agaasimaha madaxtooyada intii uu ka mid ahaa la taliyayaasheeda. wuxuu muujiyay inuu yahay shakhsi hufan oo daacadnimo iyo hilkarnimo oo ay u dheer tahay. waxaana alle ugu baryayaa inuu xilkan culus u fududeeyo. Fursade ayaa bedelaya Dr. Aamina Saciid Cali wuxuuna noqonayaa agaasimaha afraad ee madaxtooyada Soomaaliya ay yeelato intii ay xilkan haysay dowladda federaalka Soomaaliya. labadii bishan waxaa qaar ka tirsan warbaahinta gudaha dalka ay sheegeen in la bedeli doono agaasimaha madaxtooyada iyadoona taasi haatan ay soo ifbaxday. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa si adag ay u cambaaraysay tallaabo la doonayay in lagu waxyeeleeyo wax soo saarka saliidda ee dowladda Sacuudi Carabiya. xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay soo saartay war-saxaafadeed degdeg ah taasi oo loogu talagalay in si degdeg ah loo faafiyo. xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay si kulul u cambaareynaysaa weerarka argagixiso ee loo adeegsaday dayuurado aan duuliyo lahayn oo gacan ku samays ah oo waxyaabo qarxa lagu rakibay oo shalay subax oo Talaado ahayd lagu beegsaday 2 goobood oo shidaal oo ku kala yaala deegaanada Al-Duwandimi iyo Afiif oo bartamaha boqortooyada Sacuudi Carabiya. Soomaaliya waxay u aragtaa falkaasi burburinta leh mid halis ku ah nabadgelyada gobolka waxaana ay si dhameystiran u garab taagan tahay boqortooyada Sacuudi Carabiya hoggaankeeda, xukuumadeeda iyo shacabkeeda sida ay uga hortagaan isku day walba oo lagu waxyeeleynayo amniga ayaa lagu yiray war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya xiriir wanaagsan ay la leedahay Sacuudi Carabiya haddana tan iyo markii la go'doomiyay dowladda Qatar waxaa muuqatay in dowladda Sacuudi Carabiya ay culays siyaasadeed saartay dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay shaacisay in la xiray shaqsigii bixiyay imtixaanaadka qaranka ee dugsiyada sare. taliyaha booliiska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayaa sheegay inay soo qabteen shaqsi la tuhmayo inuu bixiyay qishka imtixaanaadkii dugsiga sare ee dalka. eedeysanaha booliiska ay soo qabteen ayaa lagu magacaabaa Jamaaludiin Xasan Xirsi oo 29 jir ah ka oo ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. taliyaha ayaa sheegay in shaqsigan loo gudbinayo maxkamadda si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan. wuxuu sheegay inay socdaan baaritaanka ku aadan shaqsigan iyo shakhsiyaad kale oo la xiriirinayo inay wax ka ogaayeen bixinta qishkii imtixaanaadka dowladda. waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno in qaybta baarista dambiyada booliiska ay soo qabteen shaqsi la tuhmayo inuu ka dambeeyay qishkii la bixiyay ee imtixaanaadka. shaqsigaasi waxaa lagu magacaabaa Jamaaludiin Xasan Xirsi oo 29 jir ah oo ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. qishkii imtixaanaadka la bixiyay ayaa waxaa ka dhashay in wasiirka waxbarashada Soomaaliya uu joojiyo dhammaan imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee socday taasi oo dhalisay in ardayda banaanbaxyo rabshado wata ay ka dhigaan magaalada Muqdisho iyadoona arintani ay shacabka si weyn u soo dhaweeyeen. Somaliland ayaa shaacisay in xildhibaan Dhakool 4 sifo oo aad u liidata uu ka shaaciyay 18 May. madaxtooyada Somaliland ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay xariga xildhibaan Dhakool oo ka tirsanaa golaha wakiilada Somaliland. war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa waxaa looga hadlay xariga xildhibaanka iyo eedeymo xukuumadda ay u jeedinayso xarigiisa.
afhayeenka madaxtooyada ayaa waxa uu warbaahinta ka hor akhriyay war qoraalkaasi ku saabsan madaxtooyada Somaliland oo bulshada u iftiimisay gafafka sharci ee uu qarannimada ka galay xildhibaan Dhakool iyo garabsiinta gudoomiye Ciro ayaa la yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo saxaafadda la hadlay waxa uu xariga xildhibaan Dhakool ku sheegay sharci darro iyo dastuur jabin xildhibaan Dhakool sharci darro kuma xirna ee wuxuu ku xiran yahay sifo sharci ah wuxuuna si cad ugu xadgudbay jiritaanka qarannimada Somaliland sharciyada iyo dastuurka uu xildhibaanka ku yahay Dhakool 18 May wuxuu ku sheegay maalin madow maalin aan gobonimo lahayn maalin qaran aan ahayn maalin aan taariikh u lahayn Somaliland maalintii la qaxiyay beelaha darafyada shirkii Burco ee lagu aasaasay gooni isu taaga Somaliland 18 May 1991 ee ay u dhamaayeen reer Somaliland ayna koow ka ahaayeen Garaad Cabdiqani Garaad Cali Sheekh Muuse Goodaad iyo raggii kale ee reer Somaliland ahaa xildhibaan Dhakoolna uu ka been abuuray midnimadii maalintaas lagu abuuray Somaliland Dhakool waxa uu been cad ka sheegay inaan Somaliland xusin halgankii daraawiishta dastuurkii Somalilandna wuxuu mudnaanta koowaad siiyay oo ku xiran xuskii daraawiishta taasna waxa uu ka been sheegay arintaasi oo jirta haddaba sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee sumadeedu tahay XIGJSL 9619 kuna taariikhaysan 11 bisha shanaad 2019 qodobada eedeynta xildhibaan Dhakool waxay yihiin qodobka 184 XIG oo ka hadlaya khiyaano qaran oo lagu weeqayo gobonimada iyo jiritaanka Somaliland maadaama uu si toos ah uga soo bandhigay warbaahinta inuu ka soo horjeedo maalinta madaxbanaanida Jamhuuriyadda Somaliland qodobka 213 XIG oo dhigaya iska hor keenis bulshada Somaliland sababtoo ah waxa uu shir saxaafadeedkiisa ku sheegay in maalintaas ay tahay maalin la qaxiyay beelaha darafyada Somaliland una tahay maalin madow halka beelaha SNM ka dhigayaan maalin qaran oo iyaga u gaar ah ayaa la yiri qodobka 215 XIG oo ah fidin warar been abuura oo lagu kicinayo bulshada Somaliland oo keenaysa nabadgelyo darro sababtoo ah waxa uu hadaladiisa ula jeeday inuu wax yeeleeyo midnimada iyo wadajirka shacabka Somaliland si ay u abuuranto jawi colaadeed iyo nabadgelyo darro loona waayo nidaamka iyo kala dambeynta sharciga warkaas oo uu ku baahiyay warbaahinta kaasoo laga dhageystay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba dambiyadaas oo ah kuwa ka dhana qarannimada Somaliland isla markaana qabashadiisu ay tahay waajib isla markiiba sida ay dhigayso qodobka dastuurka sida awgeed waxa uu sharcigu sheegayaa gafka cad ee qaranka laga galay gudoomiye Cabdiraxmaan Cirana uu ku doodayo sharci darro inay tahay in arintaasi aan la aqbali karin hadalkii golaha wakiilada marnaba la iskuma diidin inuu gaf qaran galay Dhakool balse habkii loo maray qabashadiisa ayuu hadalkooda u darsanaa in uu yahay hab qaldan balse waxa ay sheegeen in xildhibaankan uu ku xiran yahay sifo sharci ah Taabid Cabdi Maxamed duqii hore ee magaalada Muqdisho waxa uu su'aal ka keenay sababta rasmiga ah ee loo joojiyay imtixaanaadka qaran ee dalka gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa si kulul uga hadlay go'aankii wasiirka waxbarashada Soomaaliya uu ku joojiyay imtixaanaadkii socday isla markaana banaanbaxyo waaweyn ay Muqdisho ka dhaceen Taabid oo hadda ah hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka waxa uu sheegay in nasiib darro ay tahay in waxa ka dhacay magaalada Muqdisho ay tahay in ardaydii Soomaaliyeed ay banaanbaxeen kadib markii imtixaanaadka laga kansalay Taabid ayaa sheegay inuu rajeynayo in wasaaradda waxbarashada ardayda iyo waalidiinta ay isku aragti ka noqdaan imtixaanaadka isla markaana muranka jira laga gudbo waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray inay tahay waajib saaran qof walba oo Soomaaliya inuu dhageysto cabashada ardayda Soomaaliyeed loona baahan yahay in loo dabacsanaado si wadajir ahna loo wada shaqeeyo go'aankii habeen ka hor wasiirka waxbarashada uu ku joojiyay imtixaanaadka fasalka 12aad ee shahaadiga ayaa waxa ka dhashay dibadbaxyo aad u xoogan iyadoona maanta dibadbaxyo kale ay ka dhaceen magaalada Gaalkacyo iyo meelo kale oo Soomaaliya kamid ah kuwaasi oo looga soo horjeedo guud ahaanba talaabada uu qaaday wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya akhyaartana daawanaysa warkii fiidnimo oo aad kala socoteen Sultanka TV-na waa naga intaa